بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الحمد لله. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا أصبناتي حمدا لا غاية له ولا بداية له. اللهم فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت علينا من هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان، نعمة هذه الحفلة المباركة. يا رب قلت وقولك الحق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. إلهي يا مهد سبحانه وتعالى السقوط كان يكيني حضور كان إيه جمعان آد بيت كان إلهي سبحانه وتعالى بيودي سكمدا من أشرف بقاع الأرض كمدا، من خير بقاع الأرض كمدا. سيدا نبي تلمام عليه الصلاة والسلام ورهي: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها فبها ضل الشيطان وفرخ. إلهي دول كان بوسسك إلهي سبحانه وتعالى وككو بيهي وخير بدن أيونا رسول كانوا مساجدا، وحانا أول شر بدن أيونا السوق ياشا فبها ضل الشيطان وفرخ. سوق ياشا شيطان كأيا المكودلا وأكم مكودلا كبعدنا كبول كعصدا والماس كبر بارصدا. waxaa marka ugu horeysa ilaahay mahadiisa inaan annagoo ummadii rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam ah oo ilaahay uu ka fadilay ummadaha intooda kaleentood iyo rasuulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay khalaa'iqda dhammaantood uu ka fadilay, hadday tahay rusul, hadday tahay ambiya, hadday tahay malaa'ig, khalqiga ilaahay oo dhan laga doortay. annaguna aan nahay ummadiisiyo sidaas ilaahay uu noo fadilay. aan maanta oo lagu jiro bishii nooga duweyneeday bilaha qaarkood taariikhda iyo xasuusta weyn noo laheeday oo aheeday bisha la yidhaha rabiicul awal, bisha saddexaad oo taariikhda hijriyadana ah aynu ku dhex jirno. bishaas si gaara waxaa weeye 12-keeda adduunyada wax yimiday oo xaadiso ah midda ugu weyn ay dhacday taariikhda la soo maray iyo jiilalka iyo quruunta la soo maray. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana annagu aan nahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa aynu nahay. ilaahayna sidaas uu nagu sharifay oo mar haddii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay khalaa'iqda dhammaantood uu ka fadilay oo uu ka khayr badiyey, annaguna intaas aan ku mutaysannay inaanu noqonno ummadaha ilaahay kuwa laga fadila aan noqonno. waxa lagu nolo ku fadilayo uga khayr badanahay ummadahan oo binasil kitaabi wa sunnati ah ay tahay fadilidda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu fadilay
annagana saasaan ku sharafownay ummaddan ilaahay markuu la hadlaayay oo nicmada ay haystaan uu tusaayay alla waxa uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah waxaad ahaateen yaa ummata muxamed weeye nebi maxamed ummadiisiyow xarfuniddaa meeshaas lagu qadaraayaa waxa loo yeeraayana markaasi waxa weeye waa la tacdiiminayaa oo waa la weynaynayaa waxna waa loo sheegayaa waxay yihiinna waa la barayaa ilaahay waxaa nahowna barayaa subxaanahu wa tacaala waxaa alla na barayaa haddaan nahay ummaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan nahay ummad ilaahay koonkan ama adduunyadatan uu keenay kuwa ugu khayrka badan inaan nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ul ilaahi waxyaabaha aan ku khayrka badanna ilaahay noo sii tilmaamaayo ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wanaagga ayaad isfaraysiin xumaantana waad iska reebaysiin ayuu allan dhahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaad rumaynaysiin wanaaggaas ayaa alla subxaanahu wa tacaala nagu sheegay ummadahana waxaan uga khayr badannay maadaama aan nahay ummatu muxamed waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr badiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa alla khalqigan ilaahay oo dhan uu ka fadilay taasaan ku sharafownay sida uu dhahay caarifkii imaamulbuusiiri lamaa daca allaahu daaciina lidaacatihi biakrami rusuli kunaa akrama alumamiyow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu midka daacadiisa uu noogugu yeeraayo ilaahay ou ka dhigay rususha ilaahay midka ugu karaamada badanne ama ugu fadliga badanne ama ugu sharafta badanne isku meeshii ay tegaysaa kunaa akrama alumamiyow dhah annaguna waxaan noqonnay ummadaha kuwa ugu karaamo badan